cabdiraxmaan cabdishakuur warsame ayaa sheegay inaysan habboonayn in baroor diiq iyo tacsi loo sameeyo allaha u naxariistay injineer cabdiraxmaan cumar cismaan yariisow. hogaamiyaha xisbiga mucaaradka ah ee wadajir cabdiraxmaan cabdishakuur warsame ayaa dhaliilay go-aankii ay dowladda soomaaliya tacsida iyo baroor diiqda ugu sameysay guddoomiyihii hore ee gobolka banaadir allaha u naxariistee cabdiraxmaan cumar cismaan yariisow. qoraal uu soo dhigay bartiisa Facebook ayuu arrintan ku saabsan cabdiraxmaan ugu dhigay sidan: tacsi iyo baroor diiq waxaa loo sameeyaa ruuxii si dabiici ah u geeriyooda. allah u naxariistay injineer yariisow cadow ayaa dilay ee si dabiici ah uma dhiman. waxay ahayd inaan muujinno cadow uu haldoorkeennii laayay. diinteenna islaamka ma dhiiragelinayso tacsi, janaaso iyo baroor diiq loo sameeyo dadka gacanta cadowga ku shahiida. sababtuna waxau ku sheegay inaanan cadowga loo muujin dabacsanaan, dadkana aan dhiigga shuhadada wax caadi ah looga dhigin, ayuu sii raaciyey cabdiraxmaan cabdishakuur. waxay ahayd in injineer yariisow iyo saaxiibadii kale ee la dilay loo aargudo. waxay ahayd in injineer yariisow guutooyinka ciidanka difaaca ku jira loogu magacdaro, hoggaanka dowladdana uu furmaha dagaalka joogo. waxay ahayd in cadaaladda la hor keeno kuwii abaabulay, fududeeyey, falkana ka geystay, laakiin midkoodna ma dhicin, ayuu yidhi cabdiraxmaan cabdishakuur warsame oo bartiisa Facebookka ku soo qoray qoraalkaasi uu ku dhaliilayay tacsidii iyo baroor diiqda ay dowladda Soomaaliya u sameysay allaha u naxariistay guddoomiyihii gobolka Banaadir injineer cabdiraxmaan cumar cismaan yariisow